wadana bada sheeg waddanka labaad ee ugu xeebta dheer qaaradda Afrika. الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aqoon iyo abaalmarin ee shirkadda Go Turkan Stadium ay ugu talagashay dhalinyarada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku dhaqan su'aalaha ayaan dhalinyarada weydiin doonaa waa ay ka jawaabi doonaan cid walba oo su'aalaha ka jawaabta waxay mutaysan doontaa abaalmarinada kala duwan ee barnaamijkan aan ugu talagalnay barnaamijkan waa barnaamij toddobaadkiiba mar idinkaga yimaada baraha bulshada aan idinkugu soo gudbino ee Go Turkan Stadium su'aalaha ayaa inoo bilaabanaya dhalinta barnaamijka qayb galaysa ayaan markana ku soo dhaweynayaa cid walba ee su'aal ka jawaabta waxay mutaysan doontaa hadiyada aan ugu talagalnay daawasho wacan waayahay barnaamijka ayaan guda galaynaa gabar da'yar ah ayaa garabkayga taagan waa gabadha ugu da'da yareed inta barnaamijkan aan tabinayna ee ka qayb galaysa magacaaga ku bilow magaca nasiib maxamed Nusayba halkan soo eeg magacaaga nasiib maxamed Nusayba ku soo dhawow shirkadda Go Turkan Stadium waxay kugu talagashay barnaamijka maanta daawadaha ugu horeeya ee barnaamijka qayb galaya ayaa tahay su'aal ayaan ku weydiinayaa kadibna waxa laga doonayaa inaad ka jawaabto su'aashaas haddii aad ka jawaabto waxa heli doontaa abaalmarin haye waayahay hore ma ugu qayb gashay ya hore barnaamijkan camal ma ka qayb gashay maya waaya maanta maxaa rajaynaysaa inaad guulaysato mise inaad guuldaraysato ina guulaysado halkan u soo jeeso su'aasha lagu weydiinaya waxay tahay dalka Soomaaliya wadankaaga waay soo maahan wadankaaga wax ka weydiinaya maadaama gabar da'yar aad tahay su'aal aad u fudud ku weydiinaynaa su'aasha lagu weydiinaya waxay tahay degmade ayuu ku yaalaa ama ku taalaa tiyaatarka qaranka ama tiyaatarka degmooyinka gobolka Banaadir waa kala taqaanaa Soomaan degmooyin badan ayaa jira waxa laga rabaa degmada uu ku yaalo tiyaatarka laga rabaa wadana bada ku celi mar kale wadana bada halkan u jeeso wadana bada waayahay magacaaga ku celi nasiib maxamed Nusayba su'aashii ugu horeysay aan weydiinay tiyaatarka halkuu ku yaalaa waxay ku jawaabtay degmada warta nabadda jawaabta ay ka bixiso waa mid sax ah way guuleysatay hadiyada aan ugu talagalnay ayaan siin doonaa hambalyo waayahay Nusayba waa gabadha ugu da'da yar ee barnaamijka Go Turkan Stadium shirkadda ay ugu talagashay in dhalinyarada aan ugu soo gudbino Nusayba waa guuleysatay waxaad ku guuleysatay boxkan aad u jeedaa hambalyo ku leenahay hambalyo waa ku rajaynaynaa inaad barnaamijyadeena kale ka qayb gali doontid maalinka ugu horeysay aad ka qayb gasho aad guulaysato asxaabtaada ama dhalinyarada kale inay ka qayb galaan maxaa leedahay cabsinin yaa la cabsanaha laga qayb galo hambalyo waa maasantahay waa hagaag daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka aqoon iyo abaalmarin ee shirkadda Go Turkan Stadium ay ugu talagashay dhalinyarada goobaha dalxiiska imaanaya su'aalo ayaan weydiin doonaa haddii ay ka jawaabaanna waxay ku guulaysan doonaan abaalmarino aad u qiimo badan magacaaga ku bilow magacii Iqra Guuleed Ibrahim Iqra ku soo dhawow barnaamijka aqoon iyo abaalmarin ee shirkadda Go Turkan Stadium oo ku dhawaad ma sha Allah waaya markii kugu horeysay barnaamij noocan aad ka qayb gashaa hore ma yaa ugu qayb gashay markii ugu horeysay waaya maxaa rajaynaysaa guula rajaynaa nasiibkayga waxay haddii guusha la heli waayeen nasiib dar ya waa nasiib leh wax walba waayahay su'aalahan u guda galaynaa su'aasha kugu soo aad damaanta su'aalaha waxay u badan yihiin kuwa dhaqana ama dalkeena hooyo ku saabsan yihiin su'aasha haddii aad ka jawaabtid waxaa heli doontaa abaalmarin waxayna u dhacaysaa su'aasha sida tan Iqra waxaa laga doonayaa inaad sheegtid sida isku tiin hor su'aalaha dhaqanka ama dalkeena Soomaaliya ogo isku fiican waxoogo mise waa isku fiican waa isku fiican waayahay su'aasha dhigaha u fur waxay u dhacaysaa sidan sheeg waddanka labaad ee ugu xeebta dheer qaaradda Afrika mar kale aan kugu celiyo sheeg waddanka labaad ee ugu xeebta dheer qaaradda Afrika mar saddexaad aan kugu celinaya haddii aad ka jawaabtid abaalmarina qaadan doontaa waddanka labaad ee ugu xeebta dheer qaaradda Afrika Iqra isku day isku dayga waa Soomaaliya ku celi mar kale Soomaaliya waaya Soomaaliya u dhashay ma iska leedahay mise waa nasiibsanaysaa nasiibkayga waa Soomaaliya u dhashay laakiin ma laga yaabaa inaad ku soo qaadatay taariikhda ama historyga waa ku soo qaadatay waxbarashadii waayahay waddanka labaad ee ugu xeebta dheer qaaradda Afrika Iqra oo garabkayga taagan waxay ku jawaabtay waa waddanka Soomaaliya Iqra jawaabtaada maxay kula tahay ma ka fiirsanaysaa ma hubtaa maxaa is leedahay waa huwa weli fursada ku furan may waa soo rajaynaa guushii waayahay Iqra way guuleysatay hambalyo Iqra jawaabta aad bixisay waa mid saxda ahayd abaalmarinta aan kugu talagalnay ayaa gudoomi doontaa thank you maasantii Go Turkan maxaa is leedahay maanta waa ku guuleysanaysaa nasiibkayga wax ku jira ma ka rahay waayahay abaalmarintii aan ugu talagalnay Iqra ayaan gudoonsiinaynaa insha Allah Iqra su'aashii lagu weydiiyey abaalmarinta ayaan ku gudoonsiin doonaa waxaan ku weydiinay maxaa is leedahay waa ku guuleysatay kamaadan jawaabin bal abaalmarinta ayaan jecelnahay markan in aan bulshada u bandhigno
warqadan waxaa ku xusan bal aqriso waxay ku guuleysatay discount visa iyo ticket ah ee dalka Turkiga waxaa ku guuleysatay qiimo dhimis visa iyo ticket ama qiimo dhimis waxaa ku guuleysatay qiimo dhimis sida halkan ku xusan waa winner discount shirkadda Go Turkan Stadium waxay xafiiso ku leedahay magaalada Muqdisho xafiis walba aad timaadana waa lagu soo dhaweyn doonaa qiimo dhimistan ayaa lagu sameyn doonaa waana rajaynaynaa insha Allah ta'ala in qiimo dhimistaasi aan naga gudoontay hambalyo ku leenahay aad u maasantii Go Turkey waan rajaynayaa aad u maasantiin Go Turkey nasiibkeyga waxaan ku guuleystay waan rajaynayaa in alaamada aan wada aad ku ilaahay yiraahdo aad u maasan tahay ma markii kugu horeysay barnaamijka ka qayb gasho aad iyo aad hambalyo ku leenahay hambalyo sidoo kale waayahay wiil kale oo dhalinyaro ayaa garabkayga taagan barnaamijka aqoon iyo abaalmarin ee shirkadda Go Turkan Stadium ayuu igala qayb galayaa ugu horeyn magacaaga ku bilow magacaygu waa ku bilow Harun Abdullahi Jeelani Harun ku soo dhawow barnaamijka aqoon iyo abaalmarin waa ku dhawaay si fiican ugu Harun waxaan ku weydiin doonaa su'aalo haddii aad ka jawaabtid waxaad mutaysan doontaa abaalmarin haddii aad ka jawaabi weysana hadda nasiibkaaga sidaas ahaaday insha Allah nasiibkayga tijaabid doonaa dhaqanka sidee isu tiin waa isku yar fiicanna xoogaa waayahay waxaan kugu soo aaday su'aal dhaqana aan ku weydiinaynaa inaad ka jawaabtaan rajaynaynaa insha Allah Harun su'aashu waxay u dhacaysaa sida tan Soomaaliya dadka Soomaaliyeed marka laga hadlayo 60% inaa ifaantis ku day 60% waa reer baadiye 20% waa reer magaal 15% waa beeraley haddaba waa kuma ama maxay yihiin shanta dhiman marka la aan kugu celiyo Soomaaliya dadkeeda waxaa lagu tilmaamaa 60% inay yihiin reer baadiye 20% inay reer magaal yihiin 15% inay beeraley yihiin marka boqolka la tiriyo 60 lagu daray 20 lagu daray 15 waxa ka harsan 5 shantaasi maxay sameeyaan maxay dhaqdaan ama maxay sameeyaan xoolo dhaqato waan kuu sheegay haddaan kugu soo celinaya 60% waa reer baadiyo 20% waa reer magaal 15% waa beeraley 5% maxay yihiin ma ka hadlayna anaga dhaqaale kama hadlayna xoolaha iyo dhaqashada 5% maxay yihiin marka loo tilmaamayo boqoleydaas adoo fiirinaya kheyraadka waddankeena uu leeyahay haddaan su'aashaas isku dayo waxay noqonaysaa ganacsatada mar kale su'aasha mar waxa maanta dhan aan tirinayna ganacsato way isugu jiraan xisaabta ku darso 60% dadka Soomaaliyeed waa beeraley 60% dadka Soomaaliyeed waa reer baadiyo 20% waa reer magaal 15% waa beeraley shanta kale maxay yihiin ahludiin waa kuwa kale waayahay su'aashaas kama aadan jawaabin weli fursad haysataa su'aasha labaad laba su'aal ku hortaalla su'aasha koowaad maadaama aadan ka jawaabin su'aasha labaad haddii aad ka jawaabtid abaalmarintaada qaadan doontaa haddaadan ka jawaabinna mar kale fursadaada sidaas ay ku ahaan doontaa maanta waan rajaynayaa inaad ila garan doontid insha Allah waayahay su'aasha kale ee xigta maadaama su'aasha koowaad aadan ka jawaabin su'aasha xigta Soomaaliya marka laga hadlayo waa dhul xeebeed ama dhul barwaaqo waxaan kaa doonaynaa inaad sheegtid waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ganacsigooda uu ku tiirsan yahay laba kamid inoo sheeg ganacsiga Soomaaliya waxyaabaha uu ku tiirsan yahay laba kamid adoo halkan eegaya adoo maas ganacsiga Soomaaliya waxyaabaha uu ku tiirsan yahay laba kamid wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalaha waa xoolaha iyo mid labaad waxa waaye waxyaabaha dibadda nooga yimaada mar kale inaad iska hubiso waa su'aasha ugu dambeysay fursadaada Soomaaliya marka laga hadlayo waa dhul xeebeed aan ku dhahay maxaan aniga ku tiirsanahay nolol ahaan kheyraadkana ku tiirsanahay maxaa kamid laba kamid kheyraadkan waxaa kamid sida xoolaha iyo beeraha kamid mar kale ku celi xoolaha iyo beeraha xoolo dhaqatada iyo sidoo kale beeraleyda waayahay su'aashii labaad aan weydiinay magacaaga ku celi Harun Abdullahi su'aashii labaad aan weydiinay oo ahayd su'aal aqoon guud ah ee dalkeena Soomaaliya ku saabsan si sax ayuu kaga jawaabay Harun maxaad dareemaysaa su'aashii koowaad markaa qaladay tan labaad inaan sixi doonaa niyad aan gashtay waayahay koowaad marka aad qaladay labaad haddii aad hareer mar lahayd maxaad dhihi lahayd muuqaalkan waa ka soo muuqan doontaa leeyahay nasiibkaaga culeyskeeda leedahay hambalyo aan ku leenahay shirkadda Go Turkan Stadium maxaa leedahay aad ay maasiin barnaamijkan oo si quruxda badan ay ummadda Soomaaliyeed ay la wadaagayaan oo diisiinta ay tahay
maasan tahay hambalyo waayahay haaruun waa guulaystaha saddexaad ee maanta barnaamijka nagala qayb galaya haaruun hambalya kulana warqadda halkan kugu jirta la soo bax iyo waxay ku saabsan tahay aan aragna halkan u jeedi waa free language haaruun ma jeceshahay inaad luqadaha mid ka mid a inaad barato aadan u jeclahay macallimiin waxaa ku guulaysatay iskuul lagu magacaabo bright grammar oo ka mid ah iskuullada macallimiinta ajaanibta ay ka shaqeeyaan luqadda Englishka oo si free in lagu baro ku guulaysatay maasha Allah aad u farxan aan rajeynayno sida Soomaaliga ugu hadlaysid la mid aan ugu hadli doonto bilaha soo socda insha Allah haduu ilaahay hadiyada kalena waa ay kugu jiraan sida aad arkaysaanba hadiyada badan ugu jira hambalya kulana Haaruun waa guulaysatay barnaamijyadeena kala waa rajeynayna inaan nagala qayb gali doonto insha Allah aad u maasantiin waayahay wiil kale ayaa garabkayga taagan barnaamijka aqoon iyo abaalmarin ee shirkadda Go Turkan Study aan idinku talagalnay in dhalinyarada barnaamijkan aan kaga faa'iideyno wareen magacaaga ku bilow magacaygu waa Sharmaarke Xashaawi Dabcasar marka la ku celi Sharmaarke Xashaawi Dabcasar Sharmaarke Xashaawi Dabcasar magac caan ah ka soo galay si fiican waa meesha u dusaysa waa dareemaya laakiin magacaan wadaagnaa waa mahadsan tahay Sharmaarke soo dhawow barnaamijka aqoon iyo abaalmarin shirkadda Go Turkan Study su'aal ayaan ku weydiin doonaa haddii aad ka jawaabtid waxaad mutaysan doontaa abaalmarintaada haddii aadan ka jawaabinna waa siday ahaatay oo dadka horeeyo gafay waa ay jiraan su'aasha dhigaha u fur waxaan kaa doonay inaad sheegtid sheeg warshadda sokorta ee Jawhar sanadkii la aasaasay iwaali warshadda sokorta ee Jawhar sanadkii la aasaasay ma aqaan aqoonta ka mid tahay niyo haddaan isku dayo maxaa la yiraahdaa waxaan u maleynayaa 1972 marka la ku celi haddaan isku dayo waxaan u maleynayaa 1972 1972 isku day may ka tahay mise waa hubtaa waa qiyaasay deeni wax bartayna waa ahaa marka maxaa la yiraahdaa waa ila tahay waa sida ayada warshad kale oo taariikhdaasi ka agdhow ayaad birta ku dhufatay kamaadan jawaabin su'aasha koowaad wali waxa haysataa fursad labaad su'aasha koowaad dhageystaha ama daawadaha hadii uu gafo su'aasha labaad uu ka jawaabo waa guuleystay su'aasha labaad fursadan ku siinayna si fiican waayahay fursadan hadii aad ka haleeli weyso waxay ka dhigan tahay barnaamijku waa isaga hari doontaa warshadda caanaha ee Xamar sanadkii la dhisay laga rabaa warshadda caanaha ee Xamar sanadkii la dhisay marka la iska hubi warshadda caanaha ee Muqdisho sanadkii la dhisay waxa waaye 1966 noo misdhihi karnaa nin taariikhda ku fiican aan taariikh isku weydiiyay maadaama mid koowaadna birta ku dhufatay talabaadna hadda waxbaan tuhmeynay aad I try my best brother waya mid koowaadii tan maxaa is leedahay waa midaan aad macquul ah mise waa u dhownahay waa macquul waayba midaan waa u dhownahay fursad haysataa haddii su'aashan aadan ka jawaabin waa ka haraysaa jawaabtan hadda ma hubtaa mise weli fursadan ku siinaya maya jawaabtan dambe oo warshadda caanaha ee Muqdisho 1966 inay tahay exactly 1966 waa hubtaa that's great mar saddexaad waxaan jeclahay inaan fursad ku siiyo inaad jawaabtaada bedelato mise waa ku adkeysanaysaa waa ku adkeysanayaa sax waa uu ku adkeystay jawaabtu uu ka bixiyay waa mid sax ah 1966 warshadda caanaha ee Xamar sanadkii la aasaasay ama la dhisay waa 1966 taariikhda sida isu tiin aad baan ugu fiicanahay wax badan waxaan filayaa inaad dalceysatay si fiican mid koowaadna birta ku dhufatay warshad kale aad 73 jirta si fiican 72 ayaa tiri si fiican waayahay hambalyo waxaad ku guuleysatay ayaan jecelnahay markayna kula wadaagno waa maasantahay walaal dhalinyarada ku daawanaysa maxaa leedahay shirkadda Go Turkan Study maxaa leedahay waxaan leeyahay shirkadda Go Turkan Study waa in maxaa la yiraahdaa laga faa'iideysto waa barnaamijka ay wadana waa barnaamij ma sha Allah oo aad dadka ay u mahadiyeen hambalyo kula waayahay hambalyo waa guuleysatay waxaad ku guuleysatay mid ka mid ah giftiyada aan ugu talagalnay dhalinta inay helaan bal inoo soo saar adoo raaliya warqadan waxaa ku xusan winner gift way giftigina aragnaa rabnaa halkan ku jira waxa laga yaabaa hadiyadii ugu yarayd una qiimaha badnay inay tahay maanta waayahay giftigan ayuu ku guuleystay ambal yaa leenahay waa laga yaabaa yaraanta intayadu ay ka fiican tahay waana rajaynaynaa barnaamijyada xiga inaan nagala qayb gali doontid hambalyaan ku leenahay hambalyo waa maasantii walaal hambalyo waayahay barnaamijka maanta wuxuu si toos idinkaga imaanaya daawadayaal Muqdisho Mall anigoo Sabriya idinla socodsiinayay
barnaamijkan waa barnaamijka aqoon iyo abaalmarin ee loogu talagalay in dhalinyarada looga faa'iideeyo goobaha dalxiiska ama goobaha ay ku badan yihiin aan ugu soo bandhigno innagoo kaga farxinayna marka ay guulaystaan hadiyado qiimo badan inay helaan barnaamijka ayaan intaas ku soo gabagabaynaynaa inta toddobaadka xiga aan ku kulmi doonno nabadgelyo